madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ka qayb galay xaflad weyn oo magaalada Muqdisho lagu qabtay looguna dabaaldegayay go'aanka maxkamadda ayaa sheegay in guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay ka midaysanayeen arrinta kiiska badda. waxa uu sidoo kale u mahadceliyay cid kasta oo qayb ka noqotay intii ay dacwadu socotay. shacabka Soomaaliya u soo hoyatay waa ka weyn tahay wax loo nisbeyn karo qof hebela iska lahaa iyo hebela keenay iyo hebela waxay iyo waa ka weyn tahay. sidoo kale cawada maxkamadda horteeda go'aankii maxkamaddana waa lagu cadeeyay Soomaaliya mar ay dhulkaasi baddaasi raalli ka ahayd inay baxdo inaanay jirin. waqti kasta iyo zaman kasta duruufihiisu lahaa يعني قواعديسو لها حيراركيسو لها adduunyadu waa isii rogrogayso waa isii badbadalaysay mas'uuliyiintii dalka ay joogto maalin walba intii ninkii markaa joogay meeshii uga habboonayd ayuu waa jirtaa in macluumaadku ay nagu koobnaayeen waa jirtaa in fahamka iyo ogaalka iyo aqoonteena ku saabsan arrimaha badda inay yarayd waxaasoo dhan waxay keenayeen in la istuhumo iyo in la isriixriixa iyo way keenayeen. laakiin caawa maxkamadda go'aankeedii markii lagu dhawaaqayay iyo madaxdii mas'uuliyiinta halkan ka hadasho dhan waxay cadeeyeen go'aanka maxkamaddan lagu cadeeyay mar ay Soomaaliya raalli ka ahayd ama ay qayb ka ahayd ama wixii maxaan ku raadayay ee dawladda dariska saaxiibkeena ay sheeganaysay aan kula jirnay oo aan la aqbalsaneyn inaanay jirin go'aankii maxkamadda ee caawa la akhriyay ay ka mid ahayd. intii kale oo muxuu ahaay saaxiibadeen ay caawa halka ka hadashay taariikhdeedii waa la wada sheegay. waxa wax ugu muhiimsan waxay ahayd dadka Soomaaliyeed in maxaan ku raadayay mar walba xaaladdu meesha ay marayso lala socodsiiyo oo loo sheego oo la yiraahdo xaalku waa saas meeshaas saas maraysa waxaa soo kordhay caqabadaasaa jirta wanaagaasaa jiro. meelaha qaarkood intaas oo ku saabsan xiriirinta iyo wax la socodsiinta ayaa laga gaabiyaan dhihi karaa laakiin ma jirin. waxaa rabaa sidii madaxdii mas'uuliyiinta ugu horeysay ay ugu mahad celiyeen inaan dhammaan mas'uuliyiinta dalka soo martay oo laga soo bilaabo waagii maxaan ku yiraahday Allahu naxariistay Maxamed Saad Barre uu joogay xeerarka iyo nidaamka baddu ay soo bilowdeen ilaa muxuu ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ugu dambeeyay intaba badda arrimaheeda mugay timaado wax fiican ay ka soo qabteen. dacwadan ayaa soo bilaabatay sanadkii 2009 iyadoo kiiska dacwadda la horgeeyay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda sanadii 2014. markaa kadib waxaa la dhageystay dhinacyada ay dacwaddu u dhaxayso Soomaaliya iyo Kenya iyadoo ay soo martay dhageysiga dacwadda heerar kala duwan.